siyaad barraa buulaha u imaaday dhiisiga Mandera wuxuu qalqaaliyey in siyaad barre laga qayb galo shirkiisa iyo ilmo iskuuley ah hees dadka ilmihii heestaan ku jiray aniga 1974 waxaa gadaashiisa fadhiyay taagnaa Morgan oo dhalinyaro ah 1974 waxaana loogu sheekeeyay ninka madaxweynaha gadaashiisa taagan farta dad ku fiiqdaan fartu idinka toogan nin walba fartiisu laabtay waa maalintu siyaad barre yiri buula xawla idinma dhahe maanta laga bilaabo beled xawaatiin waa maalintu af Soomaali ku maamaahay oo yiri maamaha baan bilaabay ii dhameystira reer buulaha uu ku yiri maamaha Soomaaliya jirta reer buulaha u dhameystirkeeda idinkaan ka rabaa wuxuu yiri sigaar miyirkeeda qabto dhamaystiru yiri waa laga aamusay masaajid Soomaali ma gashu yiri masaajid Soomaali sigaar miyirkeeda qabto isaga dhamaystir markay reer buulaha aamuseen masaajid Soomaali ma gasho wuxuu ka wadanay reer buulaha waa og arinta iyada marka nin qiimo leh oo wadanka wax taray oo wadanka abaal u galay oo wadanka qiimo ka lahaa oo magac ka lahaa oo dadweynaha Soomaali oo dhan wada jeclaadeen noo hay weliga hay li yiru ah ilaahay wuxuu qadaray dad albaabada iyo dirishadii furanay inay ka dambeeyeen ilaahay wuxuu qadaray hal mar oo 5 sano ah naxariis inuu keeno farmaajo nin la dhaho uu madaxweyne noqday ilaahay wuxuu qadaray mid mar hore madaxweyne ahaa oo qabuurada faagay inuu ku bedelo ilaahay wuxuu qadaray maanta inay reer Soomaaliya kulli wada cabaadayaan qabuuradii laga faatay guriyihii laga jijibiyay weligeys dawlad Soomaali oo masaajid daminayso oo masaajid iiminaysa hada ay ugu horeyso Cabdirashiid Cali Sharmaarka dawladiisa 1960 something waan joogo dawlad Soomaali ah oo masaajidka tarbiil gelinayso masaajid la dabaq oo taragta la gelinayo tana ay ugu horeyso Soomaalida iyada maanta oo oynaysa farmaajo naloo keenay leeyihiin 5 sano dambe haduu ilaahay qadaro farmaajo uu ay doortaan Soomaaliyay sheekh la dhijire boqolsoon ayaa maalin wuxuu yiri Allahu naxariistay Soomaali 2 sano ma caabudaan yiri labadaas sano waxa weyn hawiye iyo daarood labadaas sano oo laga tanazulin oo laga toobad keenin oo qabiil iyo qurun la raacin Soomaaliyeed midnimadeedii bariga siyaad bar uu aasayo kala hadii lagu soo noqdo Soomaaliya dawladda ugu qiimo badan bay noqon laakiin saad ay ku socoto Soomaaliya is inta tas Allahu naxariisto